meeshaan joogna waa saldhigga degmada Quraceel wax amni darraa oo ka jira saaka ma jiraan waxyaabihii bariyahan jiray oo dhacdhacaya xaaladooda waa la xaliyay waxay saaka diyaar u tahay dadka inay u shaqeeyaan oo si nabada lagu shaqeeyo saldhiggan wax dhib ah oo ka jira saaka ma jiraan dad waxaan arkaya facebookyada iyo baraha bulshada ku soo qoraya waxyaabo dawladnimada iyo sharafta iyo nabadda intaba ka fog waxaasi waxay noqonayaan qalqalka bulshada alla iska daayo saldhiggan Quraceel waa saldhigga ugu nabdoon waa meesha qawaarijda lagala dagaalamay oo cadawga Soomaaliya koow lagala dagaalamay waa meeshii guusha Soomaaliya hooyada u ah ma mudna maanta oo la marayo 2019 in qalalaaso kale iyo dhibaato kale ay ka dhacaan waxaasi wax la ogolaan kara iyo wax la qaadan kara ma ahan wiilasha wada dhashay oo qaranka wada inay isdilaan ama qoryo isku qaataan ama dhig iska daadiyaan xaraam way cadawganaga 100 kiiloomitir iyo wax yar jira asaga noo balana inaan la dagaalno ninkii xabad raba iyo ninkii dhib raba iyo ninkii dhiig raba dhiigooda bannaan xabadooda bannaan wax ka qabadkooda bannaan waxaan ka codsanayaa dhammaan bulshada degmada Quraceel inay la shaqeeyaan ciidamada amniga lagu wareejiyay waxa wareejiyay marka la leeyahay ma ahan dad cirka ka soo dhacay inay meesha yimaadeen ma ahan dad meel kale laga keenay inay ka shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan waa ciidamadii joogi jiray 11 sano iyo inta amniga sugi jiray iyo kuwa lagu soo beeriyo ku yimid intaba saraakiishii hore way shaqeynaysaa ma ahan inaysan shaqeynaynin waxaan codsanayaa marka in ay la shaqeeyaan shacabka degmada Quraceel